بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، walaalyaal kelimadeyna maanta waxay ku saabsan tahay carabka iyo dhibka uu leeyahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qofka kuma hadlo hadal illa waxa agtiisa ahaaday malag markaasi qoraayo wax walba oo aan ku hadalno malag ayaa qoraayo walaalyaal. Nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam asagoo Mucaad ugu digayo carabka iyo dhibaatadiisa carabkiisa ayuu inta qabtay ayuu yiri kufa alayka hada kan iska ilaali oo iska qaba ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam. Mucaad wuxuu yiri aw nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya rasuulallah, mana loo qabanaya waxyaabaha aan ku hadlayno rasuulka Allah. Nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa hal yakubbu an-nas fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dadka waxa wajwaji ugu tuuranaarta illa waxyaabihii carabadooda ay gurteen mooyaane wax kale ugu tuuraan. ninkii shaacirka wuxuu yiri احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. وحيري عربك اسك إلالي احفظ لسانك أيها الإنسان عربك حفظي أيها الإنسان لا يلدغنك يوسف قنين إنه ثعبان ومص كم في المقابر من قتيل لسانه ما يقع مركز كجرت قبورته وعرب كيس إيدش عرب كيس أودلي ضد بدن أو مركز قبورته كجروا أي عرب كود دلي كانت تخاف لقاءه الشجعان. وحنا dadkaas ka baqi jiray dad geesiyaal ah ayaa ka cabsi jiray inay markaasi ka hor imaadaan. ma dalika waxa maaragtay qabriga galiyay carabkooda ayaa qabriga galiyay. marka walaalayaal carabka halistiis aad ay u badan tahay aan iska ilaalino kalimadeena halkaas ay ku dhantahay. wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq.